marka tubaddalu al-ardu ghayra al-ard dhul baa la bedel qaadanaya aan tan ahayn samooyin baa la bedel qaadanaya aan tan ahayn samooyinkani meesha ka baxayaan dhulkanina meeshu ka baxaya ilaahay baa ka saaraya subxaanahu wa tacaala caaisha qof caqli badan ahayd waa xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam su'aal bay nabiga weydiisay oo waxay tidhi waxaan ku su'aalay markan la bedelayo cirkiga dhulka dee khalqigii ku dhex jiray xaguu jiraa dadkii xaggay mareen waa su'aal wajiho cajiiba moogti ila ummaddan baa ku dhex noolay caalamkan labadiibana meeshii laga saar xaggay dadkii la geeyey ama halkee transit ku yihiin dee ku hakadeen markaa nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam calaa siraad jidka siraad dushiisay saarayin jidka siraad weynaa dadkii imika dee tirada intan laga qaaday markaa cid kale la sheeginba xadiid kaloo saxiixi siduu tilmaamaya maalin maalmaha ka mid ah nebiga waxa u yimid sala allahu calayhi wasalam nin culimadii yuhuudda ka mid ah markaa wuxuu yihi muxamedow yaa muxamed markaa addoon nebigu xoreeyo thawbaan la odhan jiray ayaa riixay xaggaa u riixay war maxaad ii riixday buu dee nebiga magaciisa ugu yeedhay yaa rasuulallahi dheh maxamedow maxaad u odhanaysa edabdarrada u diidan yahay war dhib baan geysana magacii reerkoodu bixiyun baan ugu yeedhaye adari nabadgeli buu rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam iska daa magacaa reerka iyagaa ii bixiyee kaa igu yeedhay iska daa markaa wuxuu yihi su-aala ma ku weydiin karaa waad i weydiin kartaa buuha ma ku anfacaysaa oo maad ku intifaaci bal waan iska dhegaysan buuri ballan muu qaadin inuu ku intifaacaye waan asmacuhaa waan maqli buuri dhegahan ka maqli su-aal buu nebiga weydiiya wuxuu uhi isbeddel marka lagu sameeyo caalamkan la qaado dhulkii iyo cirkiiba khalqigu xaggay joogaan waa su-aashaa wakti kale caaisha weydiisoo kale fi dulmati duuna siraad madowga jidka siraad bay ku sugan yihin buu nebigu u jawaabay calayhi salaatu wasalaam halkaasay saaran yihin